dirir ayaa inoo soo geli doona insha Allah oo ku xiga Dr. Axmed Nuur marka ha u diyaar garoobaan muxaadarada Sheekh Dirir Dr. Axmed waa ku mahadsan tahay insha Allah taala sheekhi hadda waa soo galay insha Allah Sheekh Maxamed Cumar Dirir marka sheekha ayaan soo dhaweynaynaa Dr. adigana sheekha haddaad salaamaysi sheekha hadda waa ku jira waxaan u malaynaa inuu ku muuqdo السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد حياكم الله. بارك الله فيكم شيخ كيف حالكم مسكوا الرمى؟ الحمد لله بارك الله فيكم بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين شيخ اللهم آمين جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخ. معليه أنكم كل مجرنين هدي الله ينو قول هذا إن نحكي إلهي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك. جزاكم الله تفضل الشيخ بارك الله. إن الحمد لله. ماشي جزاك الله خير شيخنا وإن شاء الله وديار هذا وهوذا كجرتا وبالله كرتا بارك الله فيك وآدي آد بنكوسو دوينينا ولا لها دغيسانينا waxaan ka codsanaynaa inay diyaar garoobaan insha Allah muxaawaradii way noo bilaabanaysaa تفضل شيخنا. وهذا ما سنت شيخ عبد القادر حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال ملك استوى جوكتان با وحالد الله يهي سلامتا إسلام ككدب عبادة ينقذانينا النوعية إذا كلا دوان الله ينقى أقبله عذاب كان الله ينقى بدباديو جندي السنة الله ينقى أباليه سبحانه وتعالى وحين قبقيننا الله ينقى بدباديو وحين كبو شاري سنة الله ينسيه انت أكدب كلمة أمام موضوع عن فقرنا هي وحوي التعاون في الإسلام أو في هذا الشهر إسكاشيغا dadka muslimiinta ay iskaashanayaan isu kaashanayaan wixii wanaagsan iyo khayrka noocyadiisa kala duwan iyo gaar ahaan bishanba marka bal guud ahaan waxaynu si kooban insha Allah u dulmari doonaa diinteena wanaagsan qiimaha badan sida u dhiiri gelisay iyo sida dadka u jeclaysiisay iyo sida uga abaabushay shayga la yiraahdo iskaashiga iyo iskarabsiga waa dhowr qodob marka wax ka tilmaami doonaa arinta horeysa ahmiyadda uu leeyahay macna miisaanku ku leeyahay arintani ay islaamka dhexdiisa ku leedahay iyo sida diinteenu u jeclaysiisay dadka iyo faa'iidooyinka ku jira iyo waxyaabaha inaga hor joogsan kara iyo waxyaabaha inagu dhiiri garin kara iyo tusaalayaal inaynu soo qaadano cidii aynu ku daynaynay sida iskaashiga iyo iskarabsiga ay ugu dadaali jireen waxa ugu qiimaha badan aynu wax ka soo qaadanaa waxa weeye waxyigeena oo nolosheena waxaynu ku saxaynaa oo inoo suubinayo inoo wanaajinaya qur'aankeena kariimka ah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu ka warramay oo ummadda uu ku dhiiri geliyay intii la joogtay iyo inta ka dambaysaba qiimaha uu leeyahay waxa la yiraahdo tacaawun ama iskaashiga wuxuu oran jiray asxaabta ridwaanullaahi calayhim sida uu tilmaamay xadiidka saxiix muslim ku sugan marka ay u baxayaan dagaalka iyo jihaad man kaana macahu fadlu dhahrin falyacud bihi calaa man laa dhahra lahu ومن كان له فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له dadkiina jihaadka u soo baxayo qofkii aan haysanin qofkii haya gaadiid dheeraada ha ku caawiyo oo ha siiyo walaalkiisa aan gaadiid haysanin si aanu dagaalkii uga hadhin oo u raaco qofkii sahay dheeraada haystaa ha siiyo walaalkiisa aan sahay haysanin sidaasuu ku imanayaa markaa iskaashigii oo dunyadaada aad bixisay waxaad ku helaysaa
dad xooggan oo ku garab taagan oo cadowga kaa dhiciya waxa kaloo rasuulku sallallahu alayhi wasallam ummadda islaamka marka la eego iskaashigooda uu ku tilmaamay inay la mid yihiin jidh keliya oo jidhkaaga dee waxba kama hakratid wixii aad hayso waad u hurtaa jidhkaaga marka dadka muslimiintii marka la eego isku tiirsanaanta iyo iskarabsiga ay leeyihiin waxa uu nabigu leeyahay waa ka mathal aljasad alwaahid waa jidh keliya waxay Soomaalidu ku maahmaahan qofna korkiisa biyo kama hakrado oo korkaaga inaad biyo ku maydho oo aad ku nadiifiso kama hakratid ee waad wada gaarsiisaa marka wuxuu sii raaciyay nabigu ida ishtaka minhu udwun tadaaca lahu sa'iru aljasad bilhumma wasahar xubin kamidii markuu xanuunsado jidhka inta kale way wadaagtaayo way wada xanuuntaa farta u hooseysa haday ku xanuunayso ilaa maskaxdaad ka dareemaysaa marka maadaama uu nabi maxamed ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ummadan islaamka ku aftirsata inay yihiin jidh keliya taa macnaheedu waxa weeye waxay isku sameynayaan waa dad istakaamulaya isdhamaystiraya oo aan isburinayno oo isturunturaynayn waxa kaloo tusaale uu ku bixiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadeena islaamka meel kastaynu joognay iyo waqti kastaynu joognaba marka laaga xagga iskaashiga inaynu nahay kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda xadiidkii isaguna saxiix muslim iyo bukhari ba ku sugnaa waa dhismo is adkaynaya oo dhismuhu waxa la yaqaanaa marka xabad xabad lebana uu yaalo wuu iska burburi karaa cid walibana way jeeri kartaa laakiin marka uu dhismo adag oo la isa saaro la talbiiso la qurxiyo uu yahay ciyaar laguma jeeri karo laguma mari karo marka ummadda islaamka arrimahaas oo dhan uu nabigu ina siinaya waxay ka turjumayaan qiimaha uu leeyahay iyo sida ay xoog ugu yeelanayaan markay iskaashadaan ilaahayna wuxuu tilmaamay inuu kuba jeclaanayo arrinta inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus waxa la moodaa dadka muslimiinta ah ilaahay wuu jecel yahay kuwa jihaadka markay galayaan dhinaca iyo dheega isku haya una eg dhisme la adkeeyay oo kale nusuustan badan aynu akhriyayno ee qur'aan iyo xadiis bale ciday u soo degeen loogu tala galay daweynaya waa inaga maaha asxaabti maaha ummada dambe inaga iyo asxaabti iyo ummadaha inaga dambeeyay way wada leenay nusuustan wana wixii ilaahay noogu tala galay waa shay mudan marka aynu dhageysano inaad noloshaada ku saxdo tiraado talowkaasi adigu ma ku camal fashay ilaa kii la hadlayaad hayda talow daliilka ama ku dhaqan arintaasi aad bay muhiim u tahay markaynu eegno quraanka kariimka ah tarqiib uu ku sameeyaa tacaawunka ama uu ina jeclaysiiyaa waxyigeen oo uu inagu abaabulaa oo ilaahayna tusaalayaashu soo qaadanaya quraanka dhexdiisa waxaynu ka fahmaynaa inuu ina jeclaysiinayo iskaashiga quraanka wuxuu ilaahay ku xusay suuradaha u gaagaaban mid ka mid ah suuratul casri la yiraahdo bani aadamkan adduunyada ku nool waxyaabaha uu khasaaraha kaga badbaadayo oo afar arrimooda wal casri innal insana lafii khusr illa alladhina aamanu wa amilu salihat watawaasaw bil haqqi watawaasaw bis sabr afarta arrimood ayay bani aadamka adduunyada ku nool khasaaraha kaga nabad galaan buu ilaahay ayuu noo sheegay subhanahu wa ta'ala laba arrimood waxay la xiriiraan qofku sidoo u noqon lahaa qof saalix ah oo wanaagsan laba arrimoodna waxay la xiriiraan qofku sidoo u noqon lahaa qof muslix ah oo walaalihii wanaajiya oo sidii loo wanaagsanaan lahaa ay iska kaashadaan marka ma kala maarmayaan inaad adigu wanaagsanaato iyo inaad wax wanaajiso inaad wax wanaajisabaad ku wanaagsanaan karaysa laakiin haddaad tidhaahdo aniga wanaagsanaanaya dadka kalena wanaagga iska kaashan mayno adiga laftaadana xumaantu way ku soo gaaraysaa marka ayadu waxay cadaysay dadka alla yaqaanka ah ee ilaahay rumeeyay intay alla rumeeyeen ee amal wanaagsan sameeyeen ka sakow haddana wanaagga isu dardaarmaan iyo xaqa dardaarankaas si culimadu tafsiirku ku fasirayaan waxa weeye iskaashiga suuratul maa'ida qaybaheeda hore waxa ku sugan aayad qaacido ku bixisay iskaashiga oo mar wal oo xukum la eegayaba waa in la eegaa
iskaashigaas iyo dhowciyadiisa ka quraanka ilaahay waxa uu ku cadeeyay aayada fi suurati al-maa'ida iskaashiga waxa la yiraahdaa midna inuu ilaahay raali ka yahay midna inuu ilaahay nacay oo uu diiday kaasa ilaahay waxa uu watacaawanu cala al-birri wat-taqwa wala tacaawanu cala al-ithmi wal-udwan samafalka iyo alla ka cabsiga isu kaashada oo ilaahay isu garabsada xadgudubka iyo dembigana ha isu garabsanina idan marka halkaana waxaynu ka aragnay iskaashiga waxaan la yiraahdo inuu leeyahay isbahaysigaas mid sharahi iyo mid khayraba uu leeyahay oo adduunka waynu arkaynaayo dadka ilaahay ka tala qaataana sida wanaagsan ayay isu garabsadaan dadka shaydaanka ka tala qaataana had iyo jeer waxa xunbay ayay isbahaysi u leeyihiin marka wax walaynu wada qabanaynaba waxaynu saaraynaa miisaanka aayadaas ina siisay oo ah falo waxani ma shar baa mise waa khayr hadduu khayr yahay waynu ku amranahay hadduu shar yahayna waynu ka fogaanaynaa taasina waa nasku waxa uu ina barayo qur'aan iyo xadiisba waxa kaloo ilaahay uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala tusaale kale uu bixiyay oo iskaashigii waxa uu ku tilmaamay inuu yahay xadhig la wada qabsanayo oo boholaha naarta lagaga badbaadayo markaasaa ilaahay waxa uu wa'tasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafarraquu ilaahay xadhigiisa wada cuskada oo ha kala tegina ka xadhiga alle waxa weeye waa diintiisa waa xadhig uu soo laalaadiyey cidda cuskataa ee xaqaa isu kaashatay isku garabsataa boholaha naarta iyo booraamaha ka badbaadayaan ciddii kalena way ku daadanaysaa aayadda markaa waad sii arkaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ummadda ugu manno sheegtay berigii hore siday ahaayeen islaamka ka hor iyo siday islaamka ugu badbaadeen marka iimaanka iyo xaqa iyo diinta isku kaashadeen ay isku garab galeen haddaynu ku sii soconno sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigu ummadda isaga oo la hadlaya oo sifada qofka muslimka aanay noo sharxaya duruustii uu nasinaya waxa uu ku yidhi almuslimu akhulmuslim qofka muslimka ahay walaalkiisa kale ayuu walaalu yahay labada qof ee islaamka ku abtirsanaya waa walaalo walaaltinimadaasi maxay dhalaysaa talow ma mid afka uun laga sheegtaabaa maya waxay leedahay raad iyo midho laga goosto laa yadlimuhu walaa yaslimuhu isagu kuma gardaroonayo cid ku gardaroonaysana garab ku siin maayo cadow u dhiibi maayo ee waa u hiilinaya uu taageeraya waman kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajati qofka ka shaqaynaya inuu daboolo baahida walaalkii iyo muraadkiisa ilaahayna baahidiisu daboolaa waataa culimmadu in fara badan maanta idiin soo sharxayeene duruufaha haysta dadkeenna kuwa debadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba qolo waliba waxbay u baahan tahay qolo waxay u baahan tahay hadyi bay u baahan tahay iyo in la hanuuniyo qolana hadyad la siiyaabay u baahan tahay qolana labadaba way u baahan yihin marka diin iyo dunyaba dadkeennu wuu u baahan yahay debad iyo gudabe wuxuu nebigu tilmaamayaa inaad ku dadaasho walaalkaa inaad ka shaqayso inaad baahidiisa daboosho rag iyo dumar mid kastaba ha ahaado mar haddii iimaanku idin walaaleeyey waxay odhan jireen soomaalidii hore ku maahmaahi jireen raganima dantaamoogii bay ku jirtaa inaad danahaagaba intood yarayso danaha ummadda ka shaqayso raganimada iyo magaca iyo sharaftu taasuu ku jiraaday odhan jireen waman faraja can muslimin kurbatan faraja allaahu canhu kurbatan min kurubaati yowmi alqiyaama qof muslima kurba haysata macnaha waa dhib iyo culays haysta noocyo kala duwan buu noqon karaa culayskaas mid gaajuu noqon karaa mid cabsiyeed buu noqon karaa mid ceeb soo gaadhay buu noqon karaa mid jahli buu noqon karaa qofka kurba haysata qofka ka dulqaada ilaahayna wuxuu ugu abaalgudaa maalinta qiyaamaha ee kurbada iyo cabsidu ay badan tahay inuu qofka ilaahay ka dulqaado subxaanahu wa tacaala isagoo ka abaal marinaya walaalkiisa u gurmada uu saaciday waman satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama qof muslima qofka astura ilaahayna maalinta qiyaamaha ayuu asturayaa asturaadaasi way noqon kartaa mid maadiyahoo muuqata iyo mid macnawiya labadaba oo hadduu dhar u baahan yahayna waad asturaysaa haddii uu ceeb ka baqayana waad asturaysaa asturaaddaa muuqata iyo taa macnawigaa mid kastaba ha ahaatee walaalkaaga muslimkaahi waxa uu kaaga baahan yahay
sidaa uu nebigu inagu dhiirigeliyey sala allahu calayhi wasalam asturaad waxyaabaha la isku kaashanayo cala albiri waataqwa isagoo nebigu sii sharxayo oo inagu tarqiibinayo o inagu abaabulayo waxa uu xusay unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba nusuustan iyo daliiladan aan akhriyayo wax badan baa baqasheen laakiin qofka muslimka ah markay dhegihiisa ku soo noqdaan iyaga oo nusuustu isku dhan u wada jeeda waxaynu uga jeednaa inay xaqa iyo wanaagga ku dhiirigeliyaan markaa way garteen asxaabtii oo waxay yidhaahdeen dee garanay qofkani markaa la dulmiyayo ama laga gardaran yahay haddii uu wax dulmiyayo sidee loogu hiilinayaa marka waa kii nebigu fasiree yidhi marka uu xumaan samaynayo ama isagu xadgudbayaad gacanta qabanaysaa haddaa isku qolo tihiin iyo haddaa isku xisbi tihiin iyo haddaa saaxiib tihiin wax kastaba ahaada oo ha odhaninkana ay xigo ha u eexanin wixii marar badan soomaalideenna ka iman jiray ee ama qabyaalad lahaa ama koox lahaa ee qofkoo baadil ku soconaya lagu garab siin jiray taasuu diidan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka labada jeerba inaad marna xaqa u sheegtaa tidhaa war dadka dhibka ka daah adigaa qalloocan hebelow sidaasaad ku saxan tahay dadka waad ka gardaran tahay taasaa nasri iyo hiilimaada markaa qofka tolka ku ahi waa qofka badbaadada iyo nabadgelyada xaq uu kugu baaqayo kugu garab gala qofka kalena waa naar buu ku horseedayaa tolba ha sheegtee markaynu u soo noqonno haddaynu sii wadna baan leeyahay intaynaan gaadhin arrintaa ku xigta nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mawduucan siduu u dhiiri gelinayey wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix nimanka ashcariyiinta la yidhaha waa qolo carabta ka mid ahoo reer yaman ahaa marka ay sahaydu ka yaraato hadday dagaal ku jiraan iyo hadday deegaankooda joogaanba waxay iska ururiyaan raashin waxa ay haystaan meel baa la isugu wada keenaa markaasaa si siman loo qaybsadaa kii inta badan haystay iyo kii aan waxba haysan iyo kii in yar haystay si siman baa loo qaybsadaa nebigu markaa wuxuu raaciyey iyagu aniga iga mid yihiin aniguna iyagan ka mid ahay buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam arrin aad u weyn weeye nebi maxamed oo qoladaa yidhi anaa ka mida iyaguna ana iga mid yihiinoo sunnaha igibay hayaan ammaan aad u weyn bay u tahay qoladaa marka taasi waxay ina jeclaysiinaysaa maadaamuu nebigu qoladaa ammaanuun waa bahanebi innaguna sidaynu bahanebi ku noqon karaynaa waxa weeye dee inaynu dhaqankoodaa samayno oo dadku ay wax wada cun yeeshaan oo hantigoosi iyo kala cun aana yeelan oo qofka iyadoo walaalkii ku agbakhtiyayo isaguna aanu ku wiirsanin oo aanu weydaaranin aqwaasha iyo hadallada culimmada markaynu u soo noqonno raggii salafkan ka mid ahaa sirta shareecada fahmay qaarkood waxaa ka mid ahaa cataa ibnu abi rabaax waxa uu leeyahy tafaqaduu ikhwaanakum bacda halaain wuxuu ka hadlayaa tacaawunkii iyo iskaashigii buu ka hadlayaa markaa wuxuu leeyahy 3 xaaladood dad yahow walaalihiinna mu'miniinta ah raadiya oo dabagala fa in kaanuu mardaa facuuduuhum aw mashaagiil fa aciinuuhum aw nasaw fadakiruuhum hadday walaalihiin bukoodaan soo booqda oo qofkii bukooda waa in lala socdaa xaaladdiisu halkay maraysa hebel jamicii kumaynaan arag shaqadii kumaynaan arag magaaladii kumaynaan arag talow maalmahan maxaa u baxay talow miyuu maqan yahay mise wuu bukaa ilaa xigmadda jamaca iyo ururka loo jideeyey waa in la isxaal ogaado marka haddii qofkaa isaga ahi bukaha la soo booqda buu leeyahy taabicigaa jaliilka ahi hadduu qofkii mashquulsan yahay oo hawlu ku jirana fa aciinuuhum saacida oo waxaad tidhaahdaan hebelow ayaamahan laguma alaga curayska ku saarani muxuu yahay aan barhkaa dejinne hadday ilaaween ama idinka idin laaween ama wanaaggii ay isu kaashanayseenna xusuusiya oo dabagala oo qofkani waa daciif oo yuu shaydaanka iyo ehelkiisu duufsanine dabagala buu leeyahay waxaa la weydiiyey imaamka la odhan jiray abu xamse ashaybaani maa hiya alukhuwatu fillaah maxay tahay walaaltinimada ilaahay daraaddii la ysu kaashado ama had iyo jeer dadka walaalaha dhaqankoodu waa maxay markaasaa waxa uu yidhi isagoo taa ka jawaabaya humul caamiluuna bidaacatillaah
almutacaawinuuna calaa amri illaah wa in tafaraqat duuruhum wa abdaanuhum waxa weeye dadka isu kaashada in ilaahay la caabudo oo laga amar qaato guryahoodu haba kala fogaadeen iyo deegaamadoodu sidaa imika aynu dee u wada xidhiidhayno innagoo adduunyada qaybaheeda kala joognaa dadka muslimiintii bacduhu maca albacd waa dad waxa kala maqanuun jidhkoodaa kala maqan laakiin quluubtooda iyo ruuxdoodu iyo dareenkoodu wuu wada joogaa marka arrintaasi dadka saalixiintii ay nagu dhiiri gelinayaan waa mid iyaduna ku xisaabtan leh qodobadaynu ka hadlayno waxaa ka mid ah fawaa'idu tacaawun iskaashiga aynu iskaashanayno dhinac walba nolosha oo qofka bani aadamka ahi keligii isma bixiyo qof keligii isku fillaanayo isbixinayaa ma jiro haddii cidi isku fillaanayso nebiyullaahi aadam calayhi salaam aabbihii ummadda ayaa ilaahay keligii u dayn lahaa xaawaa laga abuuray ubad badan baa laga farcay oo ayaa ka farcamay oo aynu arkayno maanta tiraday adduunyada leegyihiin taasi waxay sheegaysaa qofka bani aadamka ahi baahida uu qabo ciddii kale ee isaga ka agdhow siiba dadka iimaankiiyo islaamnimadiiyo diintu ay walaalayeen faa'iidooyinka tacaawunka waxaa ka mid ah istifaadatu kulli fardin min khibaraati alaakhariin qofku inuu ka faa'iidaysto walaalaha kale horumarka ay gaadheen iyo khibraddooda iyo wixii ay ku dhaamaan waxaa ka mid ah idhaaru alquwati waatamaasuk qofkan inuu awood yeesho oo qofku markuu keligii yahay wuu itaal yar yahay marka ummaddiisa dhex taagan yahuu kaashanayana wuu awood badan yahay oo dadka qaarkood waxay ku shaqeeyaan wax umamiye la yidhaahdo ummadnimo qaarkoodna anaaniyay ku shaqeeyaanoo aniga ah marka cidda had iyo jeer isticmaasho aniga cidlay ku hadhaa diin iyo dunyaba way daciiftaa laakiin dadka had iyo jeer ummadnimada isticmaala awood baa u korodha waa faa'iidooyinka tandiimul waqti waxaa ka mid a wakhtigu qofka inuu u hagaago juhdigiisa iyo dadaalkiisuna uu midho dhalo waxaa laga yaabaa shaqo kaaga baahan lahayd intaasoo maalmood markaad walaalahaa kaashato diin iyo dunyaba iyo arrin iyo adduunba inuu ku soo ururo saacado yar inay ku soo ururto faa'iidooyinka waxaa ka mid a waa thamaratun min thamaraati alukhuwati alislaamiya walaaltinimada diinteennu ay nagu dhiiri gelisay midhaha laga goosanaya iskaashigaa ka mid ah waa kaa dee ilaahay shicaarka iyo cinwaanka inooga dhigay watacaawanuu cala albiri waataqwa sabafalkii alla kacabsiga isu kaashada waxaa ka mid a faa'iidooyinka ximaayatu lfard qofkii oo dhowrsoonaada akhlaaqdiisaa dhowrsoonaanaysa diintiisaa dhowrsoonaanaysa oo bahalka shaydaanka la yidhaahdaa wuxuu ka dhigan yahay bahalka xoolaha cuno oo kale had iyo jeer xoolaha bahalku wuxuu jecel yahay ka goonidaaqa ah ee meel cidlaa u baxa laakiin neefka xoolihiisa ku dhex jira aad uguma soo dhiirado marka qofku had iyo jeer cidla u baxo shaydaankuu khatar u yahay naftu inay lumisaabuu khatar u yahay marka iskaashigu qofka waa ilaaliyaa waxaa ka mid a had iyo jeer alqadaa'u cala alanaaniyati wa xubu daat qofku markuu walaalihii garabsanayo anigadaa ku yaraata isla weynaantaa ku yaraata baahiduu walaalihii u qabo iyo waxay tarayaan buu gartaa waxyaabahaasoo dhammi waa faa'iidooyinka uu leeyahay iskaashigu ee islaamku uu inoogu dhiiriyey waxyaabaha la iska tacaawuni karaa maxay noqon karaan waxay noqon karaan arrin iyo adduun iyo awood iyo aqoon iyo wixii la mid ah waxaa ka mid ah atacaawunu calaa dafci dulm cid walaalahaga ka mid ahoo lagu soo duulay ayaa laga difaacaya xaqa isku leeyihin dadka muslimiinta waxaa ka mid ah atacaawunu fi thabaati cala alxaqi watamasuki bih iskaashiga diinta iyo xadhiggan ilaahay in la wada qabsado ilaa inta ilaahay lala kulmayo taasina wax la isku saacido weeye atacaawunu fi dacwati ila allah waxyaabaha aynu iska kaashanayno waxaa ka mid ah inaynu diinta ilaahay isu kaashanno iyo dadka sidii loo gaadhsiin lahaa taasoo awood iyo arrin iyo aqoonba inooga baahan marka intaa la isu geeyo diinta waa la hinjinayaa horaa loo dhaqaajinayaa oo nebigeennii wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalam ilaa uu diinta u helay dadkii la garabgeli lahaa dee waad garanaysaa qarsoodi buu ku jiro waa dhuumanaya cahdigii maka laakiin markii ay dadkeedii iyo dalkeedii diintu heshay aafaaqa alcaalam tihooyinka caalamka o dhan buu gaadhsiiyey nebigu atacaawun fi taswiij alcuzaab waxyaabaha aynu isu kaashanayno waxaa ka mid a dhallinyaradeenna inaynu guurino adduunka ku filqan wiilal iyo gabdhaba oo waxaa laga yaabaa qofku wax yar
inay caqabad ku yihiin oo guurkii intoo wax loo ururiyo ayaa caqabadda laga saaraya biilkoodiina way iska helayaan marka arrintaasina waxay ka hortegaysaa faaxishada iyo sinada iyo dhacdhaca dhallinyaradeenna ka yimaada waxyaabaha aynu isu kaashanayna waxaa ka mid a attafaquhu fi ddiin wa tacalumu alcilmi sharci diinta ilaahay in la barto oo aqooni ay timaado aqoonta waxa la yidhaahdaa ummadda waxyaabaha badbaadiye weeye waxaynu isu kaashanaynaa dadka mahmuumiinta ah ee hamigu hayo inaynu iyagana garab gallo oo aynu saacidno oo dad badan oo kaa agdhow oo jaarkaaga iyo qaaraad garanayso oo arrimaha kuu soo bandhigayba hami haystaa ama gaajo ha ahaado ama cudur ha ahaado ama cabsi wax ku timid ha ahaado qofba wax buu u baahan yahay oo dadka waxa ku badan kuu nebigu sheegay malhuufka ahaa malhuuf waa matashiisha kay soomaalidu yidhaahdaan haddii uu helo ma dhigan karayo ma marxisan karayo waad kala talinaysa siduu wixiisa u maamulanayo haddii mushkiladii ku timaado ma xallin karayo markaa dadka mahmuumiinta ah iyagana waynu iskarabsanaynaa xaqaynu isu kaashanaynaa tacaawunka waxa ka mida dadka mas-uuliyiinta ah ee xilalka inoo haya qofka wanaag keena ee arrin wanaagsan oo diin iyo dal iyo dadba u wanaagsan keena in isagana aan lagu xumaynine laakiin la saacido lagu garab galo tacaasubka waxyaabaha aan idhaahda ee iskaashigan aynu dhiiri gelinayna sharcigu ina faray caqabada ku ah waxa ka mid ah waxa la yidhaahda tacasub ama qabyaaladda iyo kooxaysiga waa waxyaabaha dadka kala firdhiya shaydaankuna uu adeegsado waxa ka mid ah waxyaabaha lumiyad mashquulkaaga oo bata oo dantaada gaarka ahuun aad ku ururto oo dantii ummadaba aad xusuusan weyday ila waxa loo baahnaa waqtigii inaynu qaybino oo waqti ilaahay aad caabudo waqtina aad naftaada danaheeda soo dhammayso waqtina ehelka siiso waqtina danaha ummadda marka waqtigii ummadda haddii aad ka mashquusho iskaashigii baa meesha ka baxaya waxa ka mid a waxyaabaha caqabadda ku ah waxa la yidhaahdo xasad marka qofku taana inuu aad uga dadaalo ka durko aad bay muhiim u tahay suu dhanni bilaakhariin tuumaadda dadku ay istuhmaan ee qofku xagga wanaagsan qofka aanu ka akhriin ee dhinaca xun uu ka akhriyo had iyo jeer arrimihiisa waxyaabaha iskaashiga lumiye ayay ka mid tahay cadamu tacawudi cala tacaawun inaan tarbiyad lagu soo qaadan ayaa arrintan ka mid a waxyaabaha caqabadda ku ah oo waxay u baahan tahay ummaddeena inaynu aad u barno maadaam reer baadiye kala socdo berigii hore aynu ahayn inaynu carruurtu markay yaryar yihiin aynu ku soo rabayno sida isu kaashan lahaayeen inta guriga wada joogta inta jaarka ah inta ehelka ah iyo inta isku ummadda ay isku deegaan tahay arrintaasina tarbiyad ayay u baahan tahay waxyaabaha inaga saacidi kara waxa ka mid ah tacaarufka isbarashada bulshadu inaan midiba meelun ku qufulaanin gobolkiisa maqsinkiisa aanu ku qufulaanin dadka la isbaro oo isaraga qooni kama horraysaa la yidhaahdaa ummaddu markay isbarato ayay fikirayaan odhanayaan qof wanaagsan baabaatee waxaa ma iska kaashanaa haddaanay isbaran laakiin waxba kama dhaxaynayaan waxaa ka mid a ixtisaabul ajr innagu iskaashiga waxaynu uga jeednaa inaynu ilaahay raalli gelino subxaana wa tacaala abaalna aynu kaga raadinno waxa aynu u soo gudbi lahayn tusaalayaashoo namaadijka ah wixii la sheegaba tusaalaha lagu fahmaa ciddaynu ku dayanayno waxa hormuud ka ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo rasusha ilaahay iyo asxaabta tacaawunkoodu siduu ahaa ma soo koobi karno laakiin midhar ka mid a haddii aynu soo qaadanno wuxuu qur'aanku ina barayaa ambiyada ilaahay say isu kaashan jireen waa laba nebi oo isdhalay nebi ibraahim iyo ismaaciil kacbaday dhisayaan iyagoo ducaysanaya rabbanaa taqabbal minna innaka anta asamiicu alcaliim qur'aanku wuxuu inoo sheegayaa nebi haaruun iyo nebi muuse isu kaashanaya fidinta dacwadda iyo badbaadinta ummadda oo markuu ilaahay nebi muuse faray inuu dhaqaaquu risaaladii qaado codsi buu qadimay ilaahay uu qadimay in walaalkii lasoo raaciyo haaruun waa tacaawunkii iyo iskaashigii waxaa tusaalayaasha ka mid ah nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu hijroonayey yaa saacidee garab galay reer abubakar oo dhan baa garab galay cali ibnu abi aalib baa garab galay sidaasuu markaa ay ugu sahlanaatay hijradii nebigu sala allahu calayhi wasalam markaad siirada akhriyaysa waxaad arkaysaa reer madiine siday nebiga u soo dhoweynayana loo kala boobayay mid meel seexiya iyo booskii masaajidka uu ka dhisayey iyo halkan masaajidkiisu uu yahay oo reer bani najaar ay markaa u fidinayeen inuu bilaash ku dhiso nebigu oo aan laga iibinin
iyo markii masaajidka la binaynayay sidii hawsha loo waday waxaasoo dhammi waxay ahaayeen tusaalayaal aad iyo aad u qiimo badan wuxuu ku tarbiyey nebigu asxaabtiisa tacaawunka iyo iskaashiga qolyihii soo qaxay ee reer Maka wuxuu sameeyey wuxuu la walaaleeyey oo la qoysuu ka dhigay reer Madiina qofba qof buu hebel adigu hebel baad la qoystay adiguna hebel baad la qoystaa waa ka fi suurati al-hashr ilaahay ku amaanay asxaabta labada qayboodba inaha soo dhami waxa weeye runtii waxyaabaha aynu arkayno ee ayna dhiiri gelinaya marka maanta walaalayaal waxaynu ku soo ururinaynaa baahi badan baa jirta oo bulshadii aynu ka soo jeednay Soomaalida haysata dhinacyo badan qaar baa awood u baahan qaar baa arrin u baahan qaar baa aqoon u baahan qaar baa u baahan adduun la siiyo maanta marka hadday tahay gudaha iyo hadday tahay dabadaba wixii la kari karaya intoo la isku ururiyo ciidiba ciday ka baahi badan ama meeliba meesha ka baahi badan in lagu daboolo waqtigani waa waqti qaaliya weeye oo qiimo badan dadkana cimrigoodu wuxuu ku sii kala baraka bataa kolba sida ay uga faa'iideystaan goobta iyo waqtiga qiimaha badan marka camalkii uu qiimo badan yahay ayaamahan la qabanayay bisha Ramadaan inaad idcaabu dacaam aad samayso oo dadka aad quudiso dadka sooman inaad afuriso agoonta inaad u gurmato wixii khayr la horumarinayaba inaad waxaad helaysa ku darsato حادي أدوين وتعاون وقيمها بدن أين رجينا إن أينو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلبي قاع في ماض قضى يعود كحلاش أمر كي نسكدرنه وحن رجينا إن وحلاهي إن غفر حياه إن نكلك لنا سبحانه وتعالى حقيس وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ محمد بارك الله فيك إلهي سبحانه وتعالى هكا أجر سيو كلمة داس وانا داسي وعدك هساد نوسو جيديسي وحانا إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إنو كاغيا لميزانك حسنات كاغيا يوم القيامة ولا لها نقول جرا قولك أو دقيسانا وحان كعصانا إنا وحي سؤاله فقرضة هذا ويدا ماتي وحان نوهر سؤاله شيخ محمد عمر ديرير iyo sheekh Bashiir Shiil ayaa diyaar noo ah marka wixii su'aale insha Allah ta'ala waxa ku soo diri kartaan Facebook ama YouTube ka Abu Hurayra marka wixii su'aale ayaan hadda bilaabaynaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiraahdo ma ha su'aalaha screen-kaad ka arkaysaan meesha ay ku qoran tahay abuhurayra.org halkaas ku soo dira insha Allah ta'ala marka su'aasha ugu horeysa sheekh Bashiir ayaan ku bilaabaynaa marka waxay noqonaysaa su'aasha ugu horeysa ay soo direen ilaa hadan su'aalo ahana soo gaaray su'aasha ugu horeysa waxay leedahay sheekh jazakallahu khair shan jimco waxa xadiis ku soo aroray hadii iyo wax ka lamid qofka uu ka tagto ay dhaafto in uu leeyahay qofka kan ونقولنا قفكاس قف أن لا أقبلين عمل كيسة مركه هذا وقت أن كجينا أن جماعة أن تكون نقولها أن كحرنا هاي حديث كاس ما نقول ضبق ما يا أيوليه مركه الشيخ كسودو بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما شاء أن هجاجنا حديث كوحوها النبي عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع تهاونا 3 جمعات أيها ما هي شان ماشى waxa ka dhalanaya iyo jawaabta ka dhalanaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay in qalbigiisa nukita fihi qalbihi nukatan sawda in dhibic madow qalbigiisa lagu sameeyo taa waxay ahayd qofkii isagii oo jimcihi ay waajib ku tahay oo aan laga rafcinin oo ilaahi subhanahu wa ta'ala uu san cudurdaar sharci ah siinin isaga taga cudurdaarna male salaadii jimcadana waajib ay ku tahay sidaas uu isaga tagay laakiin hadda inaga oo kale ma noqonayna dadka noocaas oo kale ama ma noqonayno way sababtu tahay waa la inoo diiday inaan ka soo baxnaba gurigaagii marka sidaa darteeda meeshaas ay kaaga dhacaysaa waajibkii la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha waajibkii waa ka dhacay la midna ma tihid nabigu wuxuu sheegay in alayhi salaatu wasalaam waa qofka isagoo waajib ay ku tahay ikhtiyaarkiisa ooga taga wax sabab u diidayna aysan jirin taas ayaa nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam
marka farqi baa jira qofka ikhtiyaarkiisa uga taga iyo qofka lagu kallifay ee meeshii daruuro ay timaado laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wallahu aclam bisawaab jazaaka allahu khayra sheekhana su-aasha labaad sheekh maxamed baaraka allahu fiik saa'ilkan wuxuu leeyahay qof qaata daawooyinka depressionka daawooyinka xagga dhimirka loo qaato soonkii muxuu ka samaynayaa ma soomayaa mase haddii la yidhaahdo daawada waktigaas waa inaad qaadataa maalinkii oo kaleeto qofkaas muxuu samaynayaa soonkii alxamdu lilah qofku marka had iyo jeer uu daawadaa qaadanaya haddii uu ka maarmi karo oo habeenkii uu ka dhigan karo wax dhibaato ah oo ka soo gaadhayaana aanay jirin wuu soomayaa dawadiisana habeenkii buu qaadanayaa si uu isu waafajiyo soomkii iyo dawadii haddii laakiin aanay suuragal ahayn taasi oo dhibaata ay soo gaadhayso markuu dawadii ka tago waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay qof uu ku dhacay xanuun aanu ka bogsanayn marka dhakhtarkii aaminka ah uu taa caddeeyo qofka laftiisuna uu tijaabiyaba marka waxaa laga bixin doonaa raashin baa laga bixinayaa ama qof buu quudinayaa oo uu galabtii afurinayaa ama raashin qallalan buu bixinayaa oo 30 kiilo noqonaya 30 maalmood ama 29 kiilo kolba bishu intay tahay haddii la rajaynayo inuu ka bogsado oo muddo cayiman uu qaadanayo dawadaana uu iska cuni doonaa bisha ramadaan dawadiisana uu qaadan doonaa kadibna marka uu ladnaado ama uu bogsado ayuu soo qallayn doonaa marka qofka labada xaalo ayaa loo kala qaadaya dawada qaadanaya laakiin diinteennu waa diin aad iyo aad u qiimo badan oo ummadda u naxariisanayso ilaahay ugu talagalay marka qofkii la odhan maayo ama iska waala ama iska silic oo dawada iska daa la odhan maayo cibaadadiina wadaya caafimaadkiina waa ilaalinaya wallahu aclam jazaaka allah khayr sheekh baaraka allahu fiik hadda su-aasha kaleeto qofka kan wuxuuna weydiinayaa sheekh bashiir salaado badan ayaa liigu leeyahay buu leeyahay qofkan salaado badan ayaa liigu leeyahay marka salaadihiina hal mar ma qallayn karo maxaan sameeyaa salaadahaas maxaan ka sameeyaa bismillah alxamdulilah waxaan ognahay salaadu inay tahay rukniga labaad ee islaamka bacda shahaadateynka ilaahayna subxaana wa tacaala waajibnimadeeda uu nebiga ku waajib yeelay calayhi salaatu wasalaam ee lagu soo la amray amarkeedu waa ka duwanaa amarada kale oo ilaahay subxaana wa tacaala habeenka waa tuu leelmiyey subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah ilaahay subxaana wa tacaala dunidan isagoo joogo muunan ku waajib yeelinay isagoo samada iyo fooqa 7 samaawaad joogaa nabiga lagu soo waajib yeelay taa waxayna tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay salaada walidaalika markay ahlu naarka naarta galaan waxa ay ku cudur daaranayaan waxa ay tahay marka la weydiiyey asbaabta geliyey naarta maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin alla markuu tilmaamayay wuxuu oranayay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaa wattabacu shahwaat fasawfa yalqawna gaya inay naarta sababtaa ku gelayaan waadiga naareed weliba marka haddii qofkii uu ka toobad keeno salaadihii ka tegey oo ilaahay u toobad keeno nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka ugu horraysa atawba tajubu maa qablaha ama tahdimu maa qablaha lafdi kale toobada wixii ka horreeyey oo dhan ilaahay waa u dhaafaya subxaana wa tacaala attaa'ibu min adambi kaman laa damba lah sida lafdi kale ku soo arooray xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka dembiga ka toobad keena wuxuu la mid yahay sidii isagoo aanan lahayn laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan waxa wanaagsan waa dayn sida nebiga buu oranaya calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramaya arrin kale fa daynullahi xaqa an yuqdaa ilaahay dayntiisaa mudan in la qadeeyo oo la gudo maadaama ilaahay dayn kugu leeyahay subxaana wa tacaala sidaa darteeda hadduu qofku awoodi karayo wixii uu garan karayo waxa ay yihiin salaadaha lagu leeyahay inuu iska gudaa wanaagsan haddiise ay tahay wixii wax aad u tiro badan oo salawaad tiro badan uusan garanaynin waxa wanaagsan inuu sunnaha badiyo maxaa yeele xadiid kaloo nebiga waxaa jira calayhi salaatu wasalaam uu oranayay qofka waxa ugu horreeya miisaanka loo saaro waa salaada hadday salaada hagaagto waxa ka dambeeya waa hagaagayaan hadday salaadiisu naaqis noqoto oy wax ka dhinnaadaan rabbi wuxuu yidhaahdaa subxaana wa tacaala malaa'igtu markay weydiiyaan oo yidhahdaan rabbigu salaadiisii qofkan uma dhammaystirna unduruu licabdii hal lahu min naafila addoonkayga u fiiriya wax sunno ama haystaa hadday sunno uu haysto markaa waa loogu dhammaystiraa waajibkii
meesha marka waxaan ka qaadanaynaa salaada sunnada in la badsado oo sababtu tahay hadhow waxay u noqon doontaa salaadii waajibka ahayd mid kabta ayay noqonaysaa sidaa darteeda marka haddii qofku uunan garanayn intii uu ka tegey waxa wanaagsan salaada sunnada ah ha ka tegin rawaatibta 12 ragcadood ee nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam iyo hadday noqon duxadii hadday noqon lahayd salaatuleylka hadday noqon lahayd nawaafisha noocaas oo kale inaad aad u badisid si ay hadhow ay kugu buuxiso wixii kaa dhinaada insha allahu tacaala wallahu subxaanahu watacaala aclam جزاك الله خير شيخنا شيخ محمد سائل كان وحولي هاي قف قرابة أو لو هدي وكجويو إسكي كوشرو أديقنا آد إسكاجا مسجد أرنتاز دين تم حيك قبطة سؤال شلبات وحولي قف كان هدي أنا جو صومن أي جنابة إجت معضو صبت كموس الشيء لكن صون كي نحون قنايا الحمد لله qaraabadu xidhiidhintooda qaraabada la xidhiidhiyo qur'aanka iyo xadiidkuba aad bay u dhiirigeliyeen waxaanay ka mid tahay waajibaadkeena saaran silatu raxim waxay ka mid tahay xuquuqda ay isku leeyihin dadka ehelka ah ma aha shay uu qofku ikhtiyaar u leeyahay wuxuu doono uu ka yeeli karo laakiin waa shay cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo qaraabo xidhiidhintana markuu nebigu fasirayay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay inay tahay adigoo xidhiidhiyo qofka ku gooya laakiin qofka ku xidhiidhiyo un haddii aad xidhiidhiso mukaafi baa la yidhaha qofkaasoo waad abaal gudaysaa un cid abaal kuu samaysun baad u abaal gudaysaa laakiin qaraabo xidhiidhinta qiimaha badana ajriga laga helaa waxa weeye tan naftu ay karaahiyeysanaysa dhibta ku ah oo dadkii ku gooyey ama ku fogeeyey ama aan ku abaal gudaynin inaad wax siiso sidaa daraaddeed baa nin nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka cabanayaa qaraabadiisa wuxuu leeyahay waxaan leeyahay dad qaraabo ah oo anigu waan xidhiidhiyayana way xumeeyaan markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ugu bushaareeyey sidaa aad sheegaysa haddii ay tahay buu waxaad ka dhigan tahay adigoo dambas kulul afka ugu gurayo kale ilaahayna cid kaaga hiilisa ayaa uu ku samaynayaa marka innagana dadkeennu had iyo jeer radulficligaa ku yaro badan ama aargoosigoo dadka qofka ay saseegaan way ku gacan saydhaano way ka dhaqaajiyaan taasi sax maaha waxaa la doonayaa samafalkii inaad u fidiso qofkii adiga ku cadaawadeynaya inaad xidhiidhiso si qalbigiisii u soo jeesto kaannahu waliyun xamiim siduu qur-aanku tilmaamayo saaxiib wanaagsan uu noqdo ka waa la dulqaadanaya waa la siinayaa waa la xidhiidhinayaa xanuunkaa inuu ka bogsadaabaa laga yaabaa marka hore hayee cuqdada qofkaas su-aasha labaad jawaabteeda oo ah qofkii isaga oo sooman haddii biyihii taranku ay ka yimaadaan soomkiisi waxba noqon maayo maalin weynta hadday ka yimaadaan marka iyagoo ka yimaada iyo isagoo iska keenaa kala duwan haddii ay ka yimaadaan oo wax gacana iyo wax sababa aanu ku lahayn soomkiisii waa sidiisii weeye waxba kamuu noqonin waanu ka maydhanayaa jinaabada si uu cibaadadiisii iyo salaadiisii u wato laakiin hadduu isagu xaaskiisii la ciyaaro ama uu biyii taranka iska keeno rag iyo dumar mid kasta ahaaduu sabab ku leeyahay markaa cibaadadaasi waa ka buraysaa soomku maalintaa wuu ka jabayaa waanu dembaabay inuu ilaahay u toobad keenana weeye oo uu soona qaleeyo waxaana u daliila rasuulka sala allahu calayhi wasalam waagu wuxuu u bari jiray mararka qaarkood isagoo aan weli jinaabadii ka maydhanin kadibna intuu ka maydho ayuu salaada tegayey marka sidaasaa jawaabteeda markaynu soo ururna ay noqonaysa wallahu aclam جزاك الله خيرا شيخنا شيخ بشير سؤاشتان waxay leedahay hooyo ayaa soo dirtay waxay leedahay wiilkayga 25 uu ka weyn yahay laakiin quraanka ma akhrin yaqaano marka haddii salaadii taraawiixda aniga hooyada ee ma tujin karaa aniga quraanka aqaana ciyaalka iyo asagaba tan kaleeto wuxuu cabaabay leedahay xashiish maadaama xashiishada uu cabo waan ka baqayaa in salaada haddii uu na tujiyo salaadeena la aqbali waayo marka ilaahayna iigu soo barya oo u soo duceeya arrintaasna hal iiga jawaabo bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam wabacd dhowr umuurood baa isku dhex jira awalan waxaan ka bilaabaynaa ilahi subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa jala wacala biasmaa illahi alxusna wasifaatihi alculaa wabiismi alacdam wiilka ay maamadu ka cabaadaysa iyo kuwa la midka ahba ilahi subxaana watacaala iyo kuwa baashaba qaataba aan sababayninba ilaahi subxaana watacaala inuu dariiqa wanaagsan ee toobada ah ilaahay u waafajiyo
انت وافقسنا إلهي سبحانه وتعالى وطريقة إساقا إلهي سبحانه وتعالى كو أبصد طلبات waxay tahay qof dumar ama tujin karaysa nin rag ah maya shariicada islaamka isaga tujinaya waxa dhici jirtay Aisha radhiyallahu ta'ala anha wiil adoon ahaa oo ay lahayd ay oran jirtay salaada tuji markaas quraanka namuuna aqoonin Aisha xaafidad bay ahayd waxay oran jirtay kitaabka qaado naga tuji marka kitaabka ka tujin jiray taa waxay daliil u tahay inaysan tujin karaynin waana madhabka jumhuurta ay qabaan sida sax ah haddii bahashi uu qaadanayo qofka laba mid weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala laa taqrabu salaata wa antum sukaara buu yidhi hadduu bahashi jirkiisa ay ku jirto qofku miyirba uunan lahayn inuu salaad u dhowaado ma bahaba haddii laakiin qofkii yiri la leeyahay wuu qaataa marka uu salaada tukanayana uusan waxba jirkiisii ku jirin salaadana hagaajinayo bimala waa tujin karaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala adiga hooya ilaahay u bari ducadaada ilaahay waa aqbalaya khaasatan bisha ramadaan baa lagu jiraa ilaahay sii bari subxaanahu wa tacaala إلهي وحلق بريه لقما واي جل وعلا والله سبحانه وتعالى جزاك الله خير وبارك الله فيك الشيخ محمد سؤاشتنا وحيلا ضهي وحولي سائلك وحانتو كذي صلاة الظهر التحيات كأيان اللوبي مركا هدنا سجود سهوي قدام بيبان هدنا اللوبي مركا الصلاة إذا محي نقونا يساء كان لبعض سؤاش لبعض قف أيا وحولي داد أجنبيه ayaa ila shaqeeya dadkii ajnabiga ila shaqeeyay bisha ramadaan aan wada shaqeyneen ma soomi karaan marka waxa ka muuqata dad muslim inaysan ahayn ajnabi haday uu qofkaas yiri ma soomi karaan uu yiri waxa ka muuqata dad muslim inaysan ahayn mindhaa waxay la yaabeen qofkan adkaysigiisa waxay siraan tijaabiyaan u malaynaya alxamdulilah ataxiyaadka hore waa sunne salaadaha faralka ay leeyihiin marka hadduu qofkii ka tago sujuudu sahwi buu la imanayaa labadii sujuudood sahwiga haddii uu ilaawana hadduu xusuusto markuu salaamo naqsada in yar kadib intaanu meeshii ka kicin ama aanu hawl badan gelin labadii sujuudood isagoo fadhiyo la imanayaa haddii laakiin uu xusuusto wakhti dambe salaadiisii waxba may noqonin sujuudu sahwiguna sunnay ahaayeen taxiyaadkuna sunnu ahaa salaadiisi way u dhamaystiran tahay su'aashan kale qofka gaalka ahi ma soomi karaa soomka shuruudihiisa waxa kamid ah qofku inuu muslim yahay lixda shardiya soomku uu kaga ansaxaya la yiraahdo shuruudu sixa wa shuruudu wujub waa soom qofku inuu qof muslima yahay hadii aanu qof muslima ahayn soomkiisaasi ma ansaxayo waa qof abateedkiisa iyo arrimo kale oo cid uu ku dayanaya waxyaabahaas mooyaane wax soomahoo ka ansaxaya ma jiro maadaama uu qof gaala yahay wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ بارك الله فيك شيخ بشير سائل كان وحولي ويلكيغا عنقيغا wuxuu jiraa 16 sano salaada duhurkana way ka tagtaa waana soomaya marka soonka ma laga aqbalaya maadaama salaadii waajibkeed uu ka soo bixi waayay بسم الله الحمد لله صلاة وتكذا لكن صلاة الظهر باكتكتا علادي اوغا تفتنا لو ما شيغين بش رمضان نو صوما صون كامل اقبليا اقبلك الهي با اسكال اولا waxa naga hadda aan garan karno shanta salaadood tukanay maalinta ramadaan soomay ma la aqbalaya mise lama aqbalayo ilaahi baa yaqaan subhanahu wa ta'ala لكن أنك حقنا وحي تهي قفك في الصلاة وتكذي واجبك وكان عي إلهي كلها سبحانه وتعالى أنك حقنا وحنو أرقنا قف مصلي إنه ياهي قف صائم إنه ياهي قفك هل صلاة أي كتكتمحون قوني سحال كيسو علماء الإسلام كمر كي كور رميان سفيان بن عيينة غير كيسب في سريان بقوله جل وعلا الذين هم عن صلاتهم ساهون وقوة صلاة دود ساهوينية بمعنى يؤخرون الصلاة عن وقتها صلاة وقتها دي بقول لغيان وظهرك وحي تكنيا xilliga casarka soo galay casarka wuxuu tukanaya xilligu maqrib soo galay maqribka waa xilliga xidiguhu ay soo baxeen cishuhu waa waqti dambe waa hakada sidaas qofka salaadiisa ay noqonaysaa marka ta'khiru as-salat an waqtiha hadii ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'din khalqun adaa'u as-salata wa tabi'u ash-shahawat sawfa yalqawna ghayya waadigana la gelin doono aad u malaynaysaa marka qofka sababtay kaga tagaysa muhurdo uu hurday oo cudurdaar u yeelanaya مقفكي هلمان وهالماميبا مسوا ولا كعيا
mise wuxuu ku cudur daaranayaa iskuul baan dhex fadhiyaayo hadhow cudurdaar noqon maysa taasi waa waajib ilaahay ku leeyahay aabbahana isagaa laga doonayaa inuu u sheego ilmaha marka horey tahay ilmaha inaanu tababarno waa geed baxaya geedkaasi haddii uu marka hore qallooc ku baxo qalloocaasu weligii ahaanaya in la soo toosiye way adkaanaysaa ilmuhu inta yare tababarka ay ku jiraan in la toosiye weeyaan callimuu awlaadakum bisalaati wahum abnaa'a 7 siniin 7 sano ku bilow baa lagu yidhi wadribuhum wahum abnaa'a 10 toban markay gaaraanna ha lagu gulguulo oo ha la garaaco macnaheedu waxay tahay 3 sano ayuu si xorriyada u soo tukanayay waa 5400 oo salaadood uu toosay geedku markaa inuu ka tago way adag tahay laakiin isagoo weyn marka la yiraahdo salaad baa lagugu leeyahay waad qaan gaartay hadda waajib bay kugu tahay waa inaad tukataa markuu raban uu tukanaya markuu raban uu isaga tegayaa calaa taxaal waalidku waa inuu ku dadaalo weeyaan laakiin qofku haddii salaadii duhur uu ka tegay afartii kale uu tukanayo uu dhaamaa qofka ka wada tegey laakiin weli ma hagaagsana ilaahayna ha loo baryo subxaana wa tacaala hana loo sheego inay waajib ku tahay wallahu aclam bisawaab jazaaka allah kheer sheekh maxamed saa'ilkan wuxuu leeyahay dadka baabuurta gaadiidka waaweyn wada oo waddamada isaga goosha meelaha ay isaga gooshaana waqtigooda uu kala duwan yahay soonkiisa keebuu ku dhisayaa kan labaad aan ku daro su'aal labaad wuxuu leeyahay saa'il kaleeto salaada jimcaha haddii ay qofka shaqo kaga tagto muxuu samaynayaa alxamdulilah qofku inkastoo sheekhu iga xoogaalsan yahay meelaha waqtigu aad isu bedbedelayo tacliiqa raacin doono marka uu meel tago halkaa uu tegey waqtigeedu ku xisaabtamayaa haddii ay tahay xagga soomka iyo haddii ay tahay xagga afurka labadaba oo madlaca waxa la yidhaahdo meesha ay qoraxdu waqtiga soo baxaysa iyo waqtiga dhacaysa iyo goortu waagu barayo deegaanka uu markaa qofkii joogo ayaa uu ku xisaabtami doonaa waqtiga uu ama soomka bilaabayo ama uu afurayo su'aasha labaad ee jumcadu waa shay farada markaa qofkii ay ku waajibtay ee aan cudurdaar lahayn xagga sharciga shaqo ugama tegi karo waa laba arrimood oo kala miisaan badan jumcada iyo salaada iyo cibaadadu waa xaqa ilaahayna wuu ka horeynayaa xuquuqda kaloo dhan oo xaqa nafta iyo shaqsiguna uu ku jiro daa daraaddeed waa arrin qalada in cibaadadii ilaahay looga tago waan shaqaynayaa iyo hawl adduunyaan ku jiraa waa taa marka hore sheekhuu ka soo jawaabaya ahayd qofkii inuu minal kaafiliin ka mid noqon doono oo qalbigiisuu daboolmayo shaydaankuna si yar buu kuu wadayaa marka hore jamcuu kaa kaxaynayaa haddana jumcaduu kaa kaxaynayaa haddana salaada ayuu kaa kaxaynayaaba marka qofka muslimka ahi wuxuu ilaashado oo raasamaal ah diintiisa ugu qaalisan waxaynu leenahay walaalaha kullay dabadda jooga duruufta adag ee haysato ku dadaala cibaadada ilaahay markaasaa ilaahayna adduunyada aad doonaysaan uu idiin fududayn doonaa laakiin waa xaaraan mana bannaana qofku jumcadii iyo salaadii inuu uga tago shaqada uu hayo wallahu aclam jazaaka allah kheer sheekh baaraka allahu fiik sheekh su'aashan sheekh bashiir wuxuu leeyahay saa'ilkan sekada ma ka bixin karaa carruur aabbahood uu joogo haddaan hooyadood qabo waxaan u malaynaa zakadii fitrigu ka wadaa bismillah zakaatu lfitri waa waajib xadiidka cabdullah bni cumar fi saxiixayn ayaana u daliil ah nebigu calayhi salaatu wassalaam in aan bixinno uu waajib inooga dhigay fuqahadu markay ka hadlayaan ay yidhaahdaan waxay waajib ku tahay qofkii heli karaya quutul yoomkiisa iyo wixii ka badan waxaana zakadu ay waajib ku noqonaysaa rabbul beyt ama rabbiga carruurta dhalay aabbaha carruurta dhalay isagaa laga rabaa hadday aabbihii hooyadii markaa wada noolayn islaantan ay ciddadeedii intay dhammaatay nin kala guursatay carruurtan isagaa dhalay isagaa ku magacaaban isagaa waajib ku saaran yahay haddii uu markaa bixin waayo waajibkiisii hooyadii ama ninkii kale markaa qabay ay bixiyaan waa laga ajarsiinayaa waajibkiina waa ka dhacaya wallahu aclam jazaaka allah kheer wabaarak allah fiik sheekh maxamed saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh ma ku tukan karaa suurado gaagaaban haddii aanan qur'aan in kaleeta aanan xifdisanayn intaas keliya aan aqaano alxamdulilah qur'aanka la akhriyayo salaada dhexdeeda qaybo waa faral oo waxay ka mid tahay tiirarka salaada oo waa faatixadii
rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu xadiidka saxiixa inoogu tilmaamay salaad ma laha buuri qofkaan faatixada akhriyin laakiin qur'aanka kale ee faatixada ka dambeeya qofku uu akhriyayo ama ha badnaado ama ha yaraade waa sunne qof walibana inta uu yaqaano inuu akhriyo weeye kii akhriyayey suurad dheer iyo kii akhriyayey qul huwallaha iyo qul acuudu birabbilfalaq iyo ku tukanayay mid walba ilahay ajrigii waa siinaya marka way kaaga ansaxaysaa sunnihiina waad haysaa mar haddaad suurad dhan akhriday oo ka mida suuradaha qur'aanka haba koobnaato inaad iska sii siyaadsato oo qur'aanka kariimka aad xifdigiisa iyo barashadiisa sii kordhisaana waa cibaado weyn oo cibaadooyinka u qiimaha badan ka mid ah oo qofku intii berigii uu yaraa loo dhigo inuu dul fadhiyo maahee qur'aanka barashadiisu cibaadooyinka waaweyn bay ka mid tahay qofku isagoo weyn waa inuu ku dadaalo oo kelmada iyo sadar iyo kolba intuu xafidi karo uu biiriyo ilaahay baa ka ajir siinaya wallahu aclam بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير شيخ بشير سائل كان وحولي هاي هدي قف ألا أقدره أو هلالو عتق من النار ما حي نقول يساوي ذنوب وقفكو لا إما ظن ولا شيء صدم به بسم الله وحن أغنى قفكو إلهي سبحانه وتعالى naarta ka xoreeyo meeshuu gelayo waa janno laakiin maxay noqonaysaa noloshiisa dambe waa su'aal la mid ah awalan horta ma ogaan karaynaa inaanu nahay cidqi min annaar helnihin kale maya umur ilaahay subxaana wa tacaala qaybiya ah waanu rajaynaynaa ilaahayna waanu ka baryaynaa jalla wacalaa saxaabadana waanu hoorsanaynaa inuu ilaahay qolooyinku raalli ka noqday in lagu daro laakiin cid go'aamin kartaa ma laha عقيدة أهل السنة والجماعة وحا كميد أنا عندنا اللي أورن كرينين إلا أنت نصوصتي نوتي المانتيم وياني إني هندد إلهي رالي وكي هاي أما إلهي سبحانه وتعالى والجنة قليني مركا لكن هدي قفك إلهي سبحانه وتعالى أقدره عتق من النار وها ماشا لغا قادنا يا خاتمه ونكسن إنه كل مني هاي النبي حورني عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم عملك قفك إلهي وقبني سبحانه وتعالى يكسو ساريا وخاتمه marka sidaa darteeda khaatimada ilaahay uu hagaajinaya qofka ilaahay wanaaga uu la rabo subhanahu wa ta'ala xadiidka nabigana waa tuu ahaa ilaahay waa malab uu mariya wuxuu yahay markii la yirina khaatimada ilaahay uu hagaajiya oo ilaahay dariiqa dambu uu hagaajiya jalla wa ala marka hadduu ilaahay qofkan uu qoro inuu yahay cidqi min annaar naarta inuu ka xoreynayo ciribtiisa dambana waa hagaagaysaa qof oo khaatimo wanaagsan uu ku dhimanaya ilaahay baa dariiqiisa hagaajinaya ilaahay baa toobadii waafajinaya ilaahay baa subhanahu wa ta'ala wax walba san waafajinaya wixii xumaan oo dhanna waa ka fogaanaya marka saas uu ku dhimanaya laakiin cid taqaana ma laha ilaahay baa og subhanahu wa ta'ala waa arrin ghaybi ah waxaan garan karna ma aha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam جزاك الله خير شيخ بشير وبارك الله فيك شيخنا شيخ محمد سائل كان وحولي هاي sidee bay u soomayaan waa su'aashii hadaayatay ku dhowdahay sidee bay u soomayaan dadka ku nool wadamada aan qorraxdu ka dhacayn ama aysan soo baxayn xilliyada qaarkood sida 24 saac oo kaleeto laga yaabo inay qorraxdu soo jeedo taa waxaan ku xawilay sheekh bashiir idinka meeshii joogay wixii go'aan lagu qaatay qaraaraadka markii dambe lagu gaaray si aanu isu khilaafin jawaabo sheekh bashiir su'aashaas adiga kugu soo celinay sheekh anigu waxaan u arkaa su'aashuba inay tahay fudul haddaad aniga igu soo celisay su'aashu waa fudul wey sababtay tahay waa haddii aan aragna dad ayan qorraxda u dhacaynin dhihi lahayn annaga nooma dhacdo marka waxay culimadu ka qabaan wixii la mid qofka waa loo sheegi lahaa wallahu a'lam سائلكني وحوليه شيخ محمد marka kugu soo celiyo bangi islaami ah ayaa waxaan ka qaatay guri marka bangigi islaamiga hadana waxa la yiri bangiga kan lacagta maadaama dib laga bixinayo ay ziyaadayso lacagta la bixiyo
dad baa wax shaki iga geliya marka sidee baan gurigaas yeelayaa hawshiisii waxaan la yidhaahdo amaahda baananka wax laga amaahanayo waa inaanu wixii ribe ahayn amaah qofkii uu lacag caddaan amaahday oo dee tii mortgageka ahaydee ribada dulsaarku uu saarnaa waa inaan ahayn laakiin waa inuu yahay beec caadi ah oo qofkii intoo baankii wax ka iibiyey faa'iidana uu saaray nidaamkii muraabaxada la odhan jiray marka waxyaabahan kolley baananku ay samaynayaan suuri bay marar badan u bataan wax xeeladii ay ku jirto oo loo egeysiiyey nidaamkii beeca laakiin amaahdii dulsaarka ahayd uun xaqiiqanimo iska noqonaya ilaahayna lama khiyaamayn karo lagama hoos tusi karee waxa muhiima waxaan inuu yahay beec inuu yahay oo baanku qofkan wax ka iibiyey oo ribo la saxeexay meesha aanay ku jirin iyo hadhow dayntaas inay kordhayso dayntiina waa inaanay kordhaynin nidaamkanina lacag cadoo la isamaahinaya waa inaanu hayne wax muraabaxa ku yimid oo baanku intuu qofka ka iibiyey uu kasii macaashayo waa inay qaacidooyinkaa guud baynu ku jawaabi karnaa marka taasuu ku eegi doonaa qofkan wax amaahday wallahu aclam جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى وحيدين كغير رجينا إنه ذين بركايو علمادي نقل قيب قادة جدي قود سؤالي انتاسي نوغي إنجيهين كل علمادي نقل قيب قادة الشيخ عبد الرشيد لقصة باللعبة إلا إيو حدير ما أنت ودد برنامج كان علمادي نلسو دادهين أيسي وحانك إلهي سبحانه وتعالى وقبر يعني إنه ميزانك حسنات قضوية له dadkii dhageystay oo ka faa'iideysteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kulligeen uga anfacayaan ka rajaynaynaa haddana waxaan soo dhaweynayaa insha Allah ta'ala inoo khatimi doona gudoomiyaha masjidka oo insha Allah ta'ala markuu soo khatimo ka bacdi ayaan haddana Sheekh Maxamed iyo Sheekh Bashiir aad idinkana kelmad yar noo jeedin doontaan marka Xasan Ismaan ku soo dhawow barakallahu fiik assalaamu calaykum assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أيوة شيخ دير. حياكم الله وبارك فيكم. رمضان مبارك. على النقو ومسوت شيء ذي وقت الدنبويان إلى هي كأبال مريو. وهذه بدن كودي ويا رعد وقت الدنبي لكن إلى هي كأبال مريو. أدبوا ما سن. هذه التيم كان كل شغالين يبريها بالديارين مقال كي مقال كبير قرصة طبعا. ما شاء الله. بارك الله. mar labaad hortaan oo ku hadlaya magaca masaajidka maamulkiisa guddiga maamulka shaqaalaha dhammaantood runtii aad iyo aad waxaan doonayaa inuu mahad celiyo dhammaan wadaadadii muddada yar lagu soo qabqaabiyey mu'tamarkan online-ka ah naga aqbalay wadaadadii ha odhan wadaadada waxaa kuwa islaamaha gala la yidhaa shuyuukhdii dheh روحانت إسلامها قال علي أي صومالي ولا توي قانا علمادي دواء ما شاء الله بس كلنا نحتاج والصومالي اسكتش العسلة علماء الصومالي لما رحت وحويان يعني الحمد لله وكبار العلماء ذي بها ولا هايين وشيوخ علماء لغو فرحوا رنتي أن هي صنعون tiirna noo ah hadaynahay mujtamaca Soomaaliyeed lagu noqon karo ilaahay ha noo wala barakeeyo dhamaantood laga soo bilaabo Sheekh Cabdirashiid ilaa iyo Sheekh Dirir maanta oo Sheekh Shibili Sheekh Umal Sheekh Nuur Sheekh Dr. Ali Saleh Dr. Hassan Dr. Saeed Dr. Sheekh Yusuf dhamaantoodba aad iyo aad u mahadsan runtii waqtiga yar naga soo aqbaleen mar labaad iyo saddexaad bay idinka waxaan mahad celinaa dhammaan dadka ka daawanay online dad aad badan baa runtii ka soo qayb galay website-yada oo dhan iyo YouTube-ka marka aad baad mahadsantiin waqtiga aad hurteen ilaahayna waxaan naga baryan duca aad noo badisaan waxaan arinta loo sameeyay waa ducada ajirka in laga helo ducada ajirka noo badiya mar labaad uu sii socon doonaa cidii wax dhaaftay mar labaad baan baahin doonaa insha Allah dhamaantii mu'tamarkaasi mar labaad loogu faa'iideysto haddii alla yiraahdo saasan ku soo gabagabeeyna insha Allah masaajidkiini wixii su'aala wixii taageerada lambaradi waad haysataan ahtaanaha ilaawina insha Allah waxaan kelmad siinayaa marka hore Sheekh Bashiir haddana waxaan soo khadibeynaa sheekheena martida noo ah Sheekh Dirir
وكلمة ختامك يدعى نختم بدونه إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إلهي ومهد سكاله سبحانه وتعالى. أولا كدبنا إلهي سبحانه وتعالى نعمة وينسية إنه سهلي أولها فضل إنه أدون كدين عيدي سكاله جوجنا إن أننا كلا فايدي سنة أمدينا أفايدي إنه نعمة كلوين وحكى له ما هذا إسكاله مساجد كان أبو هريرة هوشن إنه قد إنه سوق بنقابية ودولي بقوبان آدو ير وذي هذه إنت أنا ودن هؤلاء قبتي إلهك كأجر سيه سبحانه وتعالى ميزان كذا حسنات كان الله يلا إدارة هوشن ولي بقى بنقابين يسيب بريها أن عن لص عدي وعن هريو حبيب با هوشن وذي ترى الله سيو حبيب بركي كشقين أي وقت الضم وأن وذا حريرين رنتي إلهي سبحانه وتعالى كأجر سيو حيلا أنت سو كل أوقف ما أنت فايدة ستي لفردي هبين كان أي جلين درت هذا ونعمة وين ويان إلهي نسيه سبحانه وتعالى وحنا إلهي كبر ينا جل وعلا إنه النعمة دي سدائم إنه غياله ضدك الصوماليين لجودهان وحي كجد وين جالية ذا كلا برنامج كيميت وحل شيء ويهيستان ضدك كلا أين هيستانين إنه إلهي ويسر سبحانه وتعالى علماء ذي إنه يدبس عطو ومر والبو أي جوجان بالكلمة دي حقها هيدو الشيء جيسه مر والبو أي جوجان وحنا حلال وحنا حرام وحنا إلهي كفر وحنا إلهي كارب له وإن هيسنين جالية ذي كلا أنت عين لك marka waa nicmo ilaahay na siiyay subxaanahu wa tacaala inuu ka faa'iidaysano culimmadeenna meel walba aanu joogno ilaahayna waxaanu ka baryaynaa jalla wacalaa dadkeenni iyo dalkeenniiba nabad inuu ilaahay nooga yeelo innagana dhulkan gaala aanu ku noolnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa diintooda ilaashada ilaahay annagana naga yeelo waxaa masaajidka marka la leeyahay waanu ku soo celcelinay kelimadii ahayd door masaajidada ha la ogaado xilligan waa xilliga idiin baahnaayeen masaajidada masaajidkanna maanta aanu dhex joogno intaasoo hawl abuu inoo qabtay cinwaanadiina waana la siiyey teleefanadii waa laydin siiyey ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaan ka baryaynaa jalla wacala kuwa beydkiisa ilaaliya inuu ilaahay annagana naga yeelo sababahay ku taagnaan lahaayeen iyo lafdhabarkoodiina noqda maxaa yeele masaajidku wuxuu u baahan yahay qolo uu ku taagan yahay qoladuna waa jaaliyadeenna weeyaan annagaa dhisanay annagu nagu taagan yahay annagaa iskale annagaa ku manaafacasanayna waad aragtaan waxadal aynu taaban karna weeyaan saacado gudaheeda ilaa sheekh cabdirashiid oo barnaamijka inoo furay ilaa sheekh maxamed dirir oo hargeysa jooga saacadda habeen barka inoo dhafray jazaahullahu khayran ilaahay miisaankiisa xasanaadka ha yeelo marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa jalla wacalaa ramadaano kale inuu sidaasoo kale inoogu soo celiyo annagoo caafimaad qabna annagoo nabad qabna annagoo diinteenna iyo adduunkeennaba noo caafimaad qabo wajazaakum allahu khayran insha allah kelimadii waxaan ku celinayaa idaarada masaajidka iyo sheekh محمد دير جزاه الله خيرا شيخ محمد تفضل. بارك الله فيك جزاك الله خير وبارك فيك. aad baa horta u mahadsan tihiin dhammaantiin sheekh bashiirna aad baan u salaamayaa allah idin barakeeyo. salaam allahi calayk sheekh. kaalin weyn baa runtii ugu jirtaan ummadda halkaa joogta ee aynu ognahay sida ay u kala tageen ama dee duruufta adag ay ugu dhacday iyo badda ay soo dhex galeen sida sheekhuba sheegay waxyaabaha ilaahay uu ku badbaadiyey bay ka mid yihiin xarumaha iyo masaajidadaas loogu abaabulayo diintooda ee la isugu yeedhayo diinta looga faafinayo waxaad iyo aad u qiimo badan weeye runtii oo lagu farxo masjid abi hureyra iyo maamulkiisa iyo dhalinyaro iyo rag iyo dumarba iyo masjid khaalidba intaba waan idin wada salaamayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa hawshan lasoo diyaariyey ee qiimaha badan culimada khayrka badan ay maanta oo dhan ka hadlayeen wacdigiiyo waanada ka wadeen inuu miisaanka xasanaadka idiin saaro nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu addaalu cala alkhayri falahu mithlu ajri faacili xadiidkii saxiix ahaa qofka walaalkii khayr tusiya waxa uu helayaa qofkaa khayrka uu tusiya intuu helay ajriya in la eg marka wax aad iyo aad u weyn baa qabateen oo runtii lagu farxo marar badanna in la soo celceliye ay tahay iyadoo tiknoolajiyadan maanta dadka qaarkood dhinaca xun ay uga faa'iidaysanayaan ay tahay sidan oo kale in looga faa'iidaysto dee dadkiioo guryahoodii iska jooga oo wakhti badan haya oo maantana aynu ognahay sida guryaha loogu xidhay marka intaasoo culimo ah mawaadiic kala duwan ay si dhib yar u qaateen waxa weeye wax aad iyo aad loogu farxo ajri weynna looga helayo waana ta keentay runtii inaan dee u soo jeedno kowdii oo dhowdhoweeye haatan waxyaabana dhiiri gelinayay ka mid tahay aanu idinka aqbalay inaan u soo jeedno
ummaduna haddii aanay helin dee cid sidaa isugu taagto oo daba taagnaata way sii fogaanaysaa. marka taasi waa hambalyo. dadweynahana waxaynu leenahay dhegaysanaya ku xidhnaa masaajidada iyo kuwa kaleba masaajidada inaad ku ururtaan oo ilaashataan waa waajib idin saaran. inta masaajidada joogtaana idinka ayay wakiil idinka yihiin. ammaano weyn iyo xil idin saarnaa ayay idin ilaalinayaan. ilaahay baa wuxuu yidhi innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billaahi walyawmi alaakhir waaqaama asalaa wa aata azakaa ila aakhir alaaya. masaajidada ilaahay waxaa camira dadka intaasoo sifo leh, waa dada la yaqaanaho ilaahay rumaysan. marka tacmiirtiina noocyo kala duwan bay noqonaysaa. waa dhismihii bay noqonaysaa, cibaadadii iyo cilmigii iyo dacwaddii iyo waxbarashadii intii oo dhan tacmiirtii way noqonaysaa. marka cidda hawshan isu taagta ee idin ilaalinaysa idin haysa idinku abaabulaya kaalin weyn ayay ku jiraan. waajib idin saarnaana way idinka rideen. marka haddii ay idinkaga hagaagtay intaasun soo bixiya waaba inta ugu fududba. waxaa loo baahnaa inaa aqoon kaga qayb qaadataan, wakti gelisaan oo idinku timaadaan, maxaan idhaahdaa adduunkii kaga qayb qaadataan, awood kaga qayb qaadataan oo ka shaqaysaan. marka haddii afartaa arrimood tii adduunkuna ay kaaga soo hagaagtay xoolihii aad bixinaysa wax sahlan weeye. marka idinka oo runtii ugu mahadnaqaya kuna dhiirigelinaya sidaa sheekhu mar horena uu sheegay imikana uu ku celiyey. aniguna waan adkaynayaa in tabarucii la bixin jiray soomaalida iyo walaalaha kaleba ay bixin jireen in qof waliba u howlgala in lasii laban laabo si aan u xidhmin aad bay muhiim u tahay. waana xil idin wada saaran dhammaantiin. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu idin fudaydiyo. waxa ku bixinaysaana bedel khayr qaba oo degdega inuu ilaahayna idinka siiyo. dadka had iyo jeer masaajidada macmiilka oo runtii u dadaalaya carruurta keenayana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. oo walaalaheenna kale laga yaabo inaanay fursad u helin masaajidka inay yimaadaan way ka horeeyaan. kala eego xagga carruurtooda iyo waxbarashadooda diinigaaba way ka horeeyaan. marka diintan inaguma filla keliya, kumana xil baxayna aakhiro inaynu iska cibaadaysano un, laakiin fidinteeda iyo inaynu dadka gaarsiino iyo inaynu waqti ku bixinno waa xilina saaran. taana intaasaan ku darsan lahaa. waxaan baraarujin lahaa uun ayaamahaynu adduunka joognaa way yaryihiin. waa meel aynu transit iyo safar ku marayno weye, waqti kooban baynu joognaa. waxa eegtaan dadka ehelkeena iyo asxaabteenna aha ee sanadkii hore kal hore inala soomay ama inala ciiday intee maqan, intee dhulka hoos maray ee aan dib u soo noqonayn, dibna aynaan u arkayn qiyaamaha ka hor. innaguna halkaasaynu ku soconnaa. marka waxaa muhiim oo baraarujin lahaa inaynu alaabta iska xidhxidhanno, safarkana u diyaargaroobno oo aynaan u dhagoolaynin safarka xaqiiqada ee laba huraanka ah. taasina waan baraarujin lahaa. dhammaantiinna aad baa u mahadsan tihiin. ilaahayna waxaan baryayaa waxaynu ka cabsanayno ee dhibaato adduunye iyo mid aakhiraba leh inuu ilaahay inaga badbaadiyo. ubadka u naxsan tihiin in badan u warwarsan tihiin ilaahay idin ilaaliyo, ama dhammaanba inoo wada ilaaliyo. inta xidhanna ilaahay uu xabsiyada ka soo daayo. inta aynu maqlayne waalidku uu ka cabanayana ilaahay usoo hanuuniyo. ducadaasna waynu isu soo diraynaa, idinkuna way idinoo soo ducayn insha allahu tacaala. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم